fatahaadda webiga Shabeelle oo maalmihii ugu dambeeyay saameyn xooggan u geysatay qaybo ka mid ah deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa haatan gaaray tuulooyinka Siigaale, Malable, Buulo Arundi, Busley, Sagaarole ee deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa halkaas ku barakacay dadkii deganaa iyadoona haatan laga baqdin qabo in uu ku fataho gudaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa la soo sheegayaa in gudaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose qaybo ka mid ah xaafadaheeda ay soo gaareen fatahaadda webiga iyadoona maamulka deegaanka Janaale ay muujinayaan baqdin xooggan oo laga badin qabo inuu ku fataho webiga gudaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose maadaama qaybo ka mid ah gudaha deegaanka Janaale uu ku fatahay webiga Shabeelle. maamulka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay codsi u direen hay'adaha sida gaarka ah u daneeya in ay ka hortagaan arrimahan oo kale iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya in loo soo gurmado bulshada ku nool deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose si loogu hortago fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle maadaama xilligan uu saameeyay xaafado ka mid ah deegaanka Janaale iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Cismaan Cabdi Xasan Cismaan Gaab gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ugu horreyn ka hadlaya saameynta uu geystay fatahaadda webiga Shabeelle. waxaan joognaa webiga deegaanka Janaale oo fatahaad sameynaya xaafadda yiraahdo xaafad Siimo iyo hadda socdaan biyaha fatahaadna waa naga bilaawatay hadda waxaan sameynaynaa loorar ayaan sameynaynaa maartay biyo haritaanka aan bilaawna intii tabarteena ah marka waxaa weliba sii baahanahay loorar maartay oo ugu yaraan intaas oo kun ugu yaraan 500 kun loorar dhaaf ayaan rabnaa maartay oo deegaankan webigan waxa way boondada laga bilaabo ilaa Buul Aluunta ee soo jabsaraba oo dhammaantiisa maartay waa soo jabsaraba webiga sida beeraleyda dadka noo soo sheegaan iyo hadda anagu webiga korkiisaan taaganahay waa u jeedaan biyihii aad maartay aan ka dhex soconaa marka waxaan u rabnaa kulay hay'adaha daneynaya Janaale maartay sida afgoy oo kale intay noqonaan ilaa biri hadii lagu soo gaari waayo sida afgoyga darna noqonaysa marka waxaan rabnaa si magaalada loo qaxin maartay in laga soo gaaro si degdeg ah lagu soo gaaro deegaanka Janaale halas ay ku sugan yahay maal tuulooyinka waa laga soo qaxay hadda deegaankii oo maartay oo joogan oo maartay ciidamada military joogan Afrika biyaha oo galooya magaalada xaafadaha qaarkood hadda maartay biyaha ay waa ku socdaan marka waxaan hay'adaha daneynaya Janaale maartay in maartay la xiro biyaha si degdeg ah gacan laga gaarsiiyay rabnaa kulay. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala gudoomiyaha deegaanka Janaale ayaa sheegay in xilligan ay u baahan yihiin gurmad maadaama xilligan deegaanka uu soo gaaray qaybo ka mid ah fatahaadda webiga tuulooyinka Siigaale, Malable, Buulo Arundi, Busley, Sagaarole isagoona sheegay in haatan uu soo gaaray qaybo ka mid ah xaafadaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaan joognaa deegaanka Janaale tuulooyinkii dhan iyo beerihii dhan wala soo qaxay fatahaada ka dhacday tuulooyinka iyo beeraha Siigaale fatahaada ka dhacday Malable waa ka dhacday degwari Buulo Arundi waa ka dhacday beerihii dhan wala soo qaxay webiga jabsaday hadda waxaan cabsi weyn ka qabnaa marka xaafadaha Janaale qaarkood inuu webiga soo fataho hadda halkan waxaan u taaganahay inaan xirno meelihii laga cabsi qabo inuu webiga ka soo fataho dadka daneeyo arrimaha Janaale waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah inuu soo gaaraan loorarkii aan hortagi lahayn waxyaabaha qaarkood fatahaad maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo maamulka dowladda Koonfur Galbeed waxaan ka codsanaynaa inay Janaale xaalad halis ku jirtaa haddii aan wax laga qabanin maalmaha soo aadan Janaale waa loo yaabi doonaa daaweynta waxa ka wanaagsan mar walba ka hortag waxaan taaganahay hadda inaan ka hortagno aan ka hortag sameyno aan iska difaacno meelihii ay ka jilcan yihiin ee fatahaadda sameyn karto inaan hadda iska xirno haddii ay dhacayso haddii ay noqoto haddii inaa ka qabsano waxay noqonaysaa si afgoy camal ay noqonaysaa waxna ma laga qaban karaa dhowti afgoy hadda wax laga qaban karo ilaahay untay ma laha laakiin waxay ahayd intuu fatahaadda webiga sameynin inuu macnaha laga hortago hadda waxaan taaganahay ka hortag haddii hadda Janaale laga hortaginne biyaan looga cabsi qabnaa inay Janaale soo go'do ay Janaale noqoto meel weligeed aan macnaha la sheegi jirin ilaahana ku riyo fatahaadda
laakiin cabsi weyn aan ka qabnaa inuu webigu soo fataho waxaan ka codsanaynaa marka dawladda koonfur galbeed iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose arrintaas inay wax naga qabtaan maalmihii ugu dambeeyay webiga Shabeelle ayaa waday fatahaad xoogan isagoona ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada hoose waxaana ku barakacay dadyow aad u fara badan maamulka gobolka Shabeellada hoose maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wado dadaal xoogan oo lagu xakameynayay fatahaadda webiga Shabeelle maamulka deegaanka Janaale oo garabsanaya maamulka gobolka Shabeellada hoose ayaa maalmo ka hor waxa ay loorar dhigan jiinka webiga si loogu hortago fatahaadda webiga balse waxa xilligan uu ku fatahay qaybo ka mid ah xaafadaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada hoose Aweys Muumin Xasan Aweys Okay raadiyo iyo telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Shabeellaha hoose